marka hore waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed wixii i dhageysta meel kastoo ay joogaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka marka xiga waxaan rabaa inaan technology-gan kaga faa'iideysto casriga ee meel kasta fariintaada aad ku gaarsiin kartay ilaahayna siiyey waa dawladda hadda ka dhisan muqdisho ee ay maamulaan farmaajo iyo khayre waxaan dhageystay cajalad markii uu Muuse Biixi ka soo noqday Jabuuti shirka kelmad ayuu yidhi wuxuu yidhi nimanka aan meesha ku soo arkay waxay ahaayeen inama yaro aan waxba ogeyn markaan maanta hadalkaa u fiirsado waxaan isleeyahay waa runtii kelmaddaasi annaga waqooyi ahaan baan haddaba iskiin barayaa annaga dhulkan Somaliland la yidhaahdo Soomaali dhul ma kala yeelan hadda waxay kala yeelatay 1848 haddii aad farmaajo iyo khayro og tihiin waa waqtigii Afrika la saxeexday waa waqtii Afrika khayraadkeega la saxeexday ee la qaybiyey waqtigaasaan annagu indhalahayn indhuhuna waxa inoo sheegaya allihii kawnkan ku abuurtay markuu inagu abuuray indhala-aan inama dirina kitaab quraan inoo soo dejo indhahaasaan lahayn haddaba annagu waxaanu nahay dadka Soomaali indhaha u ah ee qalin iyo buugga ku shaqeeya qalin iyo buugga ku shaqeeyaan nahay annagu markii Afrika la qaybtamay indhaan lahayn oo Ingiriiska waan ka saxeexnay shirkii Berlin ee 4 bilood loo fadhiyay nimankii Ottoman Empire-ka la oran jiray macluumaadkaygu uu yaala haddaad u baahan tihiin oo taariikh akhrisataan nimankii Egypt iyo mamluuga la oran jiray macluumaadkaygu uu yaala haddaad akhrisataan annagu waxaan hayn dawlad aan calan lahayn dawlad aan calan lahayn adal empire la yiraahdo marka saasayna taariikh u ogeyn haddaba waxaan maanta idinka digayaa farmaajo iyo khayrow dawladda aad hogaaminaysaan haddii aad nimanka Jabuuti wax ugu saxeexdaan annagu dad cilmi laanaho indhale waan inay daawananaa ma jeclin Soomaalida inaan kala qaadno oo nidhaahno kani kuma jiro xuduudda iyo kani kuma jiro xuduudda laakiin shirkaasi wixii ka soo baxaan suganaa maalintaasay bilaabmay inuu madarka la kala qaado nin kastaba meeshiisii loo diro iyo meeshuu ka yimiday oo xuduudda ku xisaabtano oo qalin iyo buugga la soo baxno waxaan halkan mar labaad fariin uga sheegayaa inamada Hargeysa ku nool iyo Burco ku nool ee nimanka siyaasiyiinta madaxa kaga waaleen Somaliland waranagu dhulka waraaqaan u haysanaa waraaqo yaanu haysanaa ma jeclin inaan Soomaalida kala qaadno Soomaalidu waa hal qoys annaga isku hayna annagu haddaan rabna aqoonsi maalmaanu ku helanaa oo waraaqaan noo yaala meesha marka yaalayni waalna Soomaalida dhinac ka raaca Soomaalida dhinac ka raaco Ilaahay idin soo hadeeyo mar labaad waxa aad iigu dheer nimanka aad iigu dheeran waxba ka hadlin ee aamusan ee aan meesha uga faa'iideysanaya ugu daran in raba inuu Ilaahay soo hadeeyo Ilaahay u baryaya waa culimada Hargeysa ku nool iyo Burco ee ummadda masaajidada si kala googoynaya le Somaliland warmada u sheega diinta muslimku inaanay ummaddu kala go'in Soomaalidu haddii aad sidan ku sii socotaan miya xarshinna waa laga go'ayaa hawdna waa laga go'ayaa
iisoo saar maxaa ahayd sayladda burcee xoolaadna shaqayn mayso soomaaloo dhan baa keeni jirtay meesha nin kastaa degaankuu yimiday baan ku celinaynaa soomaalahana waa wax runa sheer oo gaadhsiiya farmaajo iyo ciddii mataqaanaa xukuumadda haysa dhulkaa haddii la saxeexo annagu xuduudaan la soo baxannaa qalin iyo buuggaan shaqaysiinaynaa ilaahayna wuuna baray gaalka uma baahni sheera oo gaadhsiiya meel kastay soomaali joogto soomaali waa mid gobollada waqooyi galbeed waa soomaaliya ka mid yihiin dhulka NFD soomaaliya ka mid yihiin dhulka iisoo saar maxay ahayday ismaamulka soomaalida soomaaliya ka mid yihiin waa wada soomaali intuba soomaalina insha allah waa isku iman doontaa sheera soomaaliya cajalada waa ni salaamaya meel kastoo joogtaan